أخياري شركة جروب كان ربنا إذن كشكيو نكتن جيس كجرت وحال لها ألينا نيكا كوحيجو وحال لها جرافيرا نكتن وحال لها مارتا نيكا جيس كجرين وحال لها جيمس نكتن جيس كجرت أوردر كعد مجا عيدا وحال يرادا ألينا ونكتها جرت بليونير وحال لها ستيت كاسي ويحد جنتها ستيت وحواي جريهان أو آتكو فربضنا هالك ميل لجا جلاء يريد هالك جنجالة sida Nairobi oo kala waa jirtaa states oo like Sochi meelaha isku yaal naagtan waxa ka dhintay ninkeedii lacagta ayada ay lahayd iyo lacagta asaga uu lahaa kulli ayadu ku qoray ayada isku haysato soo naagtan waa taajirad sidoo ninkeeda u dhintay dad lama sheekaysato dad lama hadlo meel ay iskaga gurigeeda weyn oo villa weyn ay degantay villadaas iskaga jirtaa villada waxa uga shaqeeyo shaqaale ahaan oo ah naagtan la yiraahdo Marta ninkan geeska jira Jamesna wuxuu u yahay ninka oo hantida dhowraha ama hantida u haayo oo looyarada iyo waxaas isku xiran yihiin oo state-kana asaga manager-ka ah ninkan geeska jiro ninkan dhaxda ku jiro magaciisa waxa la dhahaa Gravera waa nin hindi ah hindida caadiga ah wuxuu ka shaqeeyaa security uu ka shaqeeyana waa irida ganjeelka weyn ee state-ka ee Islaantan degan tahay ayuu hayaa state-kaasi wixii soo gala asaga ka mas'uul iridaasi ka maxaa dhacay marka maadaama naagtaani qofna ay la hadlin ama qofna uu guriga u joogin sometimes waxa jirta alaabo culculus intay suuqa ka soo gadato ninkan Gravera la dhahayo hindiga ayaa caawiyo oo guriga u galiyo guriga asaga ayaa caawiyo islaantii waligeed say ninkeeda ugu dhinto 10 sano ka hor uu ninkeeda dhintay suu ninkeeda ugu dhintay ninna lama hadasho dad lama hadasho islaam weynna waay wiilkan ayaa ka heshay wiilkii ay maalmaha ka mid irid inta istaagtay la hadashay magacii way baratay way ka tagtay maalin dambe alaad asagoo caawinaya waxay ay warwareysatay adi warwareysigii xogaho isku soo dhawaadaan waxay tiri habeenkii uu shaqeynaa habeen dambe naagta shaqaalaha markay tagto waa ku soo wacaya wad ii iimaani haye waayuudha way imaatay waxay tiri albaabka dambe gadaal guriga macnaha irid weyn uu leeyahay ganjeel laga galo iyo albaab yiriisoo gadaal laga soo galo gadaal ka soo mareetay gurigeeda waxa ku xiran kaamirooyinkaas marka waa iridaha laga soo galgalo waa xataa kan gadaala marka laga soo galo waxay sameeysaa markuu ninkan imaanayo kaamirada dambe way damisaa uu soo galaa uu la sheekaystaa uu kala kiciyaa hadalkeeda wax walbo naagtan awl koreeta gurigaas iskaga jirtay qamre iska cabi jirtay kaligeed wax adiga si walba uu qanciyay maamadii marka cunugan habiye iskaga noqotay asagana ninkani waa nin oo iska macnaha shiftigaas uu ka shaqeeyaa waxay siini jirtay lacag ay siini jirtay gift siinaysaa ninkan iska baxaya gurigiisu aadaya hooyadiis iyo familkiisa iyo naag kale oo ilmo u dhasho indii joogo lacagta u diraa saacad oo qatar oo hadda ka hor ninkeeda uu ka dhintay xataa way siisay waxaasoo dhan ninkan uu iskaga noolaa islaantii ninka marka zaid isku dhawaadeen haddana naagtani waxay ka baqaysaa maadaama ay tahay billionaire naagta jirad ah oo state-ka dhan leh oo la wada yaqaano oo foundation waxay leedahay sadaqooyin meelaha lagu qaybiyo jaaratiye bixisaa marka meelaha oo sadaqooyinka laga bixina waa loo yeeraa invitation loo diraa naagta naag weyn oo high class waa marka waxay diidan tahay cunugan yariiska lagu arkin camal waxay sameeysaa marka luqluqaas leh wiilkani ayada ku kulmaan maalinta dambe lawyer-keeda u tagtay ninkani adiga waxba la isku dhamaan waxay tiri niyow calashaan asagu u sheegto wuxuu dhaanay intaano family saanata way baxday waxay tiri half lacagtaydan haddaan dhinto half kamid ah Gravera la siinaya ninkana loo saxiix kii manager-ka ahaay ee guriga mas'uulka ahaay ee waxa koraa ka damba ninkii lawyer-kii waxa wuxuu dhawniyo naagta ii imaatay islaantii Elina ii imaatay nin noocaas magacaas leh ay ku qortay baash kala ninka wuu yaab wuxuu ninkii daba galay marka ninkii wuxuu ogaaday security-ga meesha ka shaqeynaa ninka wuxuu isku dayay marka security-gaas inuu meesha dhan ka faayiro ka fiijiyo ayada waxay tiri no ma fiijinayso uu joogaya ninka bas ninkii meesha iska joogay hawshooda iska wata wixii uu wata maalin habeenada kamid ah naagtii ninkan oo kii James kan cadaanka ah wuxuu sameeyay marka private investigation uu sameeyay wuxuu dhahay ninkan bal waxa uu maamadan islaantan weyn afaarahan u galiyay oo asaga loogu qoray lacagta guriga haday dhimato naagtan loogu qoray oo half of waxa ayada ay leedahay dhan half loogu qoray waa inaan soo ogaanaa sidii marka ninkii investigationkii marka nin barayfada soo waray ninkan uu daba socdaa naagtii xilliga wada kulmayaan uu raadinaya ninkan
meel walba sameeyay ninkan waa security meeshuu maraya qofkii soo galay waa inuu qoraa qofkii wax walba uu og yahay xilliga maamada ee u la balantay kama dib dhaco kaamirooyinka waalida lamaba arkaba xilliga guriga galay islaantii Marta oo u shaqeynaysay ayaa marka la wareystay yarkii ninkii aa wareystay waxaa shaqada aan ugu keenaha ninkan baalka doctor ani maalintii waxba ma arkay tiri laakiin habeenkii marka shaqada soo galo waa arkaa alaabtii oo kala dijisan wax aniga meelo aan wax dhigi jiray oo wax yaalin waa arkay en cunto weelal aan wax ku gabadhaan islaantaani ay wax ku cuni jirin oo meel taalana waa arkaa laakiin waxa jira ma garanaa islaanta way isbedeshay islaanta marka maxay isku bedeshay balama ay aadi jirtay ma aado telefono oo inta la soo waca ay ku celin jirtay kuma celiso naagti busy ba iska noqoto ilaan cunugan yidisa hoosta kaga jiro busy bas telefon oo ayadana telefon u keenay asagana telefon calashan telefono oo aan caadi ahayn oo kuwa caadi labadooda ay haysta aysan ahayn ka wada hadlaan maalintii markay soo jeedaan maalintuu off yahayna waxa waay maamadan gaariga qaad mar waa lagu wada gaariga Soomaaliya gaariga qaadanaysa asaga mararka qaarkood ninkani waxa lagu arkaba gaari aan ninkaasi oo lacag aan lahayn cunugan yiriiska intii lagu arkay hada cunuga intii waa u kala kacday hindigi waa u kala kacsan caadina uu kala kacday lacagtii wixii wax walba waa la siinaa islaanta ugu roonta habeenada subax maalin subaxdii naagtan Marta la dhahay subaxdii shaqadii soo gali jirtay subaxay shaqada soo gashay naagtii albaabka wax ka furaaya male albaabkii dambe qaata waa furay albaabkii dambe gudaha markay gashay qolkii ay tagtay naagtii waa iska jiiftaa ma dhaqdhaqaaqayso wax nooc male 911 waa 911 ay maad naagtii la fiiriyay mise naagtii waa meed waa dhimatay arrintii marka la galay hal dhahay dhab ninkii hindiga lagu dhagay markiiba dhab xabsiya dalaq la sii wareysiya la gasho waa la wareysto hal dhahay naagtan adaadish marka naagta waxay cuntay dawo oo meesha taalay oo kaniini ah ayaa meesha furan oo yaalo laakiin inta ku jirta lama yaqaan laakiin waxa loo maleynayaa in dawadaasi ay islaantan isku disho markaas loo maleynayaa ninkan waxa looga shakiyay maadaama asaga lagu qoray listiga iyo baashi kala inuu asaga ka dambeeyay dilkeeda ninkii la wareyso waraani shaqo ku maliyo waxa si saan waynaag adi wixii gurigiisa la tagay gurigiisa marka la tagay saacadii uu si ay siin jirto ninkeedii laga soo helay bashqada oo lacag ay hadda kale ugu qorta dhana laga soo helay ninka waxa la adaaba dambiile ahba sheekadii markii la fiiri kaniinkii la baaray kaniinkii markii la baaray waxa la ogaaday kaniinkani inuu ayada loo soo qorin oo kaniin ayada aan loo soo qorin uu yahay wala waaya waxa la kaniinkan intee ka keentay waraani kaniina ma siin naagtan maba arkin ba habeenkaas ماشي بالينا ويدمين جرت لكن مركاني ميدن دمينين ما يسن دمين باشا مركا كاميرا دي ديب لو راعي كاميرا دي لا راعي برايفت انفستيجيشن كي وحبارايو او نيكان جيمس او سو ديري ابا غوريغا سو غلاب نينكي دب لوو سي ورا اديga maxaa sameysayna markii la joogo barnaamijdan iyadoo help dhahaysa u tagay aniga kaniinkan anaasi kaniinkii xabadan siiyay meeshan ku iloowa ka tagay ayadaa la qoy ani ma ogi kaniinkan ma ogi asaga yaa la soo qabtay kii oo hindiga ahay waa la soo sido xal maadaama asaga kiisku laga wareejiyay kuwan James kan iyo ninkii asaga soo dirsaday la qabsaday sheekadii la baaray James waxa la asay shaqo ninkii yaa la weydiiyay wuxuu dhaanay kaniinkan meesha ku iloobay naagta islaantan ilaan kaniinkii way iska laqdaba maxaa dhacay marka saaxiibkii laakiin ninkan Gravera maxaa ku dhacay waxa la rabay wixii lacag ahay oo islaantaasi maadaama ay dhimatay in la sii soomeehan ninkii markii la fiiriyay viisihiisa waa dhacsan ninkan illegal ku soo galay sharci darro ku soo galay dalka sheekadii la haayo maahan kuwa immigration-ka imaadaba dhab ninkii waa qabteen waxayba dhahanba ninkan visa oo wuxuu ahaayba ninkan viisihiisa uu ku dhacay of state wuxuu joogay dalka wuxuu ku joogay sharci darro ku joogay marka war ninkan alaabta hadda waa taajir ninkan ha laga xishoodo waxaas ma jiraan dhab aalisi ninkii hindiya lagu tuuro ninkii asaga in la wareysto wuu diiday hindiyu iska joogay lacagtiisa iyo wixii dhan oo la siin lahayna wuxuu ku waayay oo uu ku heli waayay sharci darradii maadaama sharci darro uu dalkan ku joogay hal ninkan waxba islaantan kuma lahanba ninkan ma hindiya looga daba tagaa ma sidii loogu bahalkaysto xoolihii iyo lacagtii saxiixii hore ay dhahaysay lacagtaani hal qaybiyo hal baabaashi صحده نيك مساكين كأهل دقيقتنا تاجر ونقل دقيقتنا فقير ونقل هنديو هذا كل رفعتين صح نكان جرافيرا
alaabtii iyo lacagtii guriga way iibi adiga wixii dhanba waxa la wareegaba looyaradii iyo kaniisadooyinaaba la wareegaba ninkii hindiga ahayna gaajo wuxuu la joogaa baashika